يفري مركز بابا بولشوي مدشي عويس راديو هرقيسة مقل راديو هرقيسة مقل كبقو مركز بابا بولشوي مدشي عويس راديو هرقيسة مقل راديو هرقيسة مقل عويسكا 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 markale iyo dhageysto caweyskii hamoogaan madadaaladii iyo maqal heesihiyo hamoogaan caweyskee markastaba ku soo helo waxaad haysa maahmaah murtideenna hodanka ama sheeko maangala ama xaal ku soo maray ama kugu maqaalaa hala maagine bal sheego waa madal caweyse la wadaag martida kale bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh nabaddigeystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo hawl kastoo aad haysaan waxaan idin leenahay caweys wanaagsan kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Radio Hargeysa. barnaamijkeenna caweyska ee caawi radio hargeysana dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadan doonaa duulduulka dahooy damqashadayga dhowr yaananka durkine jacaylkuna daryeel isla daadahayn dejin buu rabaa waa fanaanada codka macaan ee ifraax axmed maxamed ifraax kalgacal oo caawa marti inoogu ah barnaamijkeenna iyadoo inala wadaagi doontana suugaanta kala duwan ee ay leedahay iyo weliba qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka caweyska radio hargeysa oo su'aala soo weydiiyey fanaanada ifraax kalgacal dhegaystaha ugu horreeya magaciisa waxauu ku bilaabay xamse axmed ducaale oo jooga buu yidhi magaalada burco waxaan weydiin lahaa inanta magaca kalgacal siduu ugu baxay iyo weliba haddii ay jirto hees amaba ereya ay ku luuqayso oo magacaasi uu ku raacay inay nala wadaagto heestaas xamsow horta walaalo ma jiraan wax heesaho maxaa laydhaa magacaa ii raacay ama dee intaan ku heesay ay kalgacal ku jirto anigana magacii kalgacal iigu bixiyey ma jirto laakiinse magaca waxaa ii bixisay hooyaday intaaynu ku guda jirno barnaamijkeenna haddii allaha awoodda la ogolaadana waxaad ku maqli doontaan maxaa isku haysaa ninkan ilaa hadalkiina saacad walba waxaan ku uri waanu yaabano nafti ilaahay baan haysee kee baan saynaa hee ninkan awada joogtaan ismaba hayna adeer ninkaad sheegi sidee hee waxaan ku uri isma haynee hee bale komitiga laga bixinayo komiti anigu garan maayo waxaan ku su'aal baan ku su'aalay rakaad ku hoggaansanta waa dhinaca maqalka majaajilada oo aan caawa idiin soo xulay waa ruwaayad ay jilayaasha sooraan iyo jawaan ay ka sameeyeen dhibaatada uu leeyahay aaladda lagu wada xidhiidho ee loo yaqaano facebooka waxaan ka maqnaan doonin fariimaha kala duwan ee aad barnaamijka kaga qayb qaadataan caawa iyo caweyska radio hargeysa illadii guciyaayo dagtiraayo wadaadku fanaaniinta dalkoo dhan yow diyaarsha caweyska fanaaniinta dalkoo dhan yow diyaarsha caweyska barnaamijkeenna toddobaadkan dhegaystayaal waxay nagala qayb qaadanaysa islamarkaana marti inoogu ah fanaanada codka macaan ee ifraax axmed maxamed ifraax kalgacal barnaamijkeenna intaynan ku soo dhoweyn fanaanadana aynu ku furan doonno mid ka mida suugaanta ay wada qaadaan fanaanka cabdiqaadir qaadiro waa heesta halkudhigeedu yahay ifahan oo aan idin leenahay nugla caweeya إفهم في سني إفهم ولقى إفهم عشقي إفهم وحيلة إفيلو حتى يو
فسني إفان إفان ولقى إفان إفان عاشقي قفان إفان وحيلة fikirkugu jiro filaayoon dhankaaga sugo fagaaraha arooska iyo baraatiyaan ku gashay fikirkugu jiro filaayoon dhankaaga sugo fagaaraha arooska iyo baraatiyaan ku gashay فافني عاشقي دحدينا فرحتنا كواروس كلو بمن لك أهاني سيدان فيدنا نولوشي فهني فافني عاشقي دحدينا فرحتنا كواروس كلو بمن لك أهاني سيدان فيدني نولوشي فهني فافني عاشقي بحينا فرحتنا كواروس كلنا فمن لك وهاني سيدان intaasaynu kaga soo gudubna heestaasi markana aan idhaahdo ifraax axmed maxamed ifraax kalgacal kusoo dhowo barnaamijka caweyska radio hargeysa iyo sida aad u aragto bismillaahi raxmaan raxiim maxamed waan dhowahay barnaamijka waan ku dhowahay waana markii ugu horreysay kasoo qayb galo barnaamijkan laygu soo marti qaado in aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay waxaananu arkaa wallaahi barnaamij aad iyo aad u qiimo badan waan dhegeystaa inta badan waa la socdaa waan jecelahay barnaamijkan maanta ayaana nasiib u helay inaan ka qayb qaato aad baad u mahadsan tahay ifraax axmed maxamed ifraax kalgacal ugu horey waxaan doonayaa bal dadka aan taariikh nololeedkaagii hadday noqoto fankii iyo weliba taariikhdii caadiga ahayd ee noloshaada baan doonayaa in yaroo kooban dadkaan aqoon inaad u sheegto taariikh nololeedkayga horta anigu reer hargeysaan ahay hargeysa somalilan ayaan ku dhashay waxbarashadeydii waxaan ka bilaabay dugsi dhexe dugsi hoose waxaan ka bilaabay hargeysa iskuul cumar bin khadaab la yidhaahdo ayaan dhigan jiray kabacdi waan ka gudbay ilaa heer jaamacadeed laakiinse hadda jaamacaddii ma dhammayn bartanka ayaan ku joojiyey insha allah biidmillahi kariim waana si maxaa la yidhaha bilaaban doonaa wakhtiga ii noqoto haddaan ka waramo fanka sidaan kusoo galay fanka waxaan kusoo galay markii hore kooxda ubaxmaamo ubaxfahmo kooxdeeda ayaan ku jiray feeraswankii ayaan ka bilaabay kabacdi tartan ayaa maxaa la yidhaahdaa hoonkable t v ay qabatay nimco samriye qabatay baan ka qayb galay tartankaas ayaan ku jiray waxaana noqday 7 qof ee kasoo baxay 120 ama 130 qof 7 qof oo kasoo baxay baan ku jiray 4 hablood oo ka mid ahaa ayaan ka mid ahaa aniguna marka sidaa ayaan kusoo galay fanka ilaa haddana aan ku wadaa waan gartay dhinaca maadaama barnaamijku uu yahay barnaamij madadaala oo caweysa oo dad badani ay nagala socdaan idaacadda radio hargeysa bal dhinacii maqalka heesahaaga amaba heesaha kala duwan aad ku luuqayso mid ka mid a ayaan doonaya markan inaad inoo soo qabato waxaan inoo soo qaban doonaa heeska u horeeya hees magaciisa la yidhaahdo xasil oo uu leeyahay abwaan reer gadara oo aan aada u salaamayo la yidhaahdo magaciisa abwaan jamaal liibaan ujeedada heestaa bal
ujeedada heestaa abwaanka ayaa ii dhiibay ujeedadeeduna kolley horta ma jiraan waxaan kuu sheegayaa qalinlow wax heesahoo aniga iqusaysa amba anigu aan abwaanka ka dalbaday ma jirto kolley ii soo socotaa waan ka dalban doonaa laakiinse abwaanadu heesaha iyagaa ii dhiiba iyagaana maxaa la idhaa hees ujeedadooda dee iyaga ku saabsan amba cid kale ku saabsan ay garanayaan iyagunbaa ii dhiiba waan gartay de heestaasi iyadoo muusig lay maqleen dadku iyadoo bilaa muusigaan doonayaa inaad in yar maqashiso waxay heesta ku bilaabantaa anoo ku xiisa qabaa wadin xumatadaada haddaad xaydkii qalbiga haadaanta ka xortayo ii diiday inan xasilo يا سلام codka macaan ee fanaanada ifraax axmed maxamed ifraax kalgacal oo barnaamijka caweyska ee caawi radio hargeysa martida noogu ah ayaan idin leeyahay dhegaystayaal nagula caweeya intaas dhegeystayaal aynu kaga soo gudubno codka macaan ee fanaanada ifraax kalgacal oo barnaamijka caawa ee radio hargeysa ee marti noogu dhegeystayaal idinkana idimaanu ilaabin ifraax dhegeystayaal badan ayaa barnaamijkani ka qayb qaadanaya oo iyagu barta barnaamijka caweyska radio hargeysa uu ku leeyahay facebook ee caweyska radio hargeysa kaga qayb qaatay islamarkaana su-aale kugu soo weydiiya adiga horta intaana su-aalaha qofka ugu horeeyaana soo qaban sidaad u aragtaa su-aalahaasi lagaa soo dhex weydiiyey aaladda inta badan ay dadku wada xidhiiraan ee loo yaqaano facebooka su-aalaha wallaahi dee waa su-aalo muhiim uunbay kolley i weydiinayaan dhegaystayaasha qaaliga ahi marka insha allah waxaan aniguna isku taxalujinayaan baan rajeynayaa inaan uga jawaabo qof kasta su-aashiisa waan gartay dhegeystaha ugu horeeya magaciisa waxauu ku bilaabay xamse axmed ducaale oo jooga buu yidhi magaalada burco waxaan weydiin lahaa inanta magaca kalgacal siduu ugu baxay iyo weliba haddii ay jirto hees amaba ereya ay ku luuqayso oo magacaasi uu ku raacay inay nala wadaagto heestaas xamsow horta walaalo ma jiraan wax heesahoo maxaa laydhaa magacaa ii raacay ama dee intaan ku heesay ay kalgacal ku jirto anigana magacii kalgacal iigu bixiye ma jirto laakiinse magaca waxaa ii bixisay hooyaday ayaa ii bixisay
anigoo dee yar adigoo dhalinyaro xooga anigoo sii ah bay ii bixisay marka dee maaha magac fanka la iigu bixiyey maalintan fanka soo galayna anigunbaa idhi maxaa leedhaa aniga naanays baan leeyahay naanays kale la iima bixinayo markaa ha taasaan sheegtay marka hooyo ma weydiisay iyada laftarkeeda oo ma tiri hooy maxaad horta igula jeclaatay magacan ha de anigaaba garanayaba hay hooyaday horta maxaa la idhaa hooyo walaalahay dhammaantood maxaa la idhaahdaa bimetel noo kale markaan aqalka wada joogno waa wareerin jiro waan ku dhegdhegi jiray waan dhudhunkan jiray dabadeetana hooyadayba markaan indhaha ka qaadaba saas anigu u hayhaysan jiray deetana markaasay odhan jirtay naa haddaba naga baydh hagardaamadan wayna hagardaamaysay dabadeetana markaas halkaasay iigu bixisay magaca kalgacal halkaasaana maxaa la idhaahdaa xaafadda waa la iigaga yeedhaa hooyo way iigu yeedhaa dhegeystaha kale aan doonayo inaan isagana soo qabto markaasi su-aasha kusoo weydiiyey ayaa wuxuu ku bilaabay magacaygu waa cabdi deeq marka hore waan salaamayaa saaxiibkay maxamed cabdi waan kaa qaaday cabdi deeq mintaas lamid ayaan hawada kuu soo maranaya adigiyo guud ahaanba dhegeystayaasha waxaan weydiin lahaa buu yidhi fanaanada ifraax heerkii ayaad jeceshay inaad ka gaadho fanka cabdi deeq aad baan adigana kuu salaamayaa waxaan jecelahay horta fanka waan iska jecelahay inuu maxaa la yidhaahdaa waa hobbi fanka qof maxaa la yidhaahdaa shaqo ka dhigta amba qof hobbi ka dhigta amba qof iska jecel waa la badan yahay aniga horta fanka waan iska jecelahay caruurnimadaydii waan meelahaas umaga heesheesi jiray amba waan dhegdhegeysan jiray dabadeetana aakhirkiina dee waaba anigan soo galayba fankii marka waan jecelahay inaan heer ka gaadho waa gartay dhegeystaha kale ee xiga cabdicasiis nuur cali halaasi isaga aad baan u salaameynaa waa inan fanaana waxuu yidhi aad baan u salaamayaa fanaanada isagu salaan keliya ayuu kuu soo diray dhegeystaha kale xigaawa ayaan jaamac ibraahim oo ku magac dheer bay tiri ayaan kalgacal inantaas ku magac baabatiin aad baan u salaameynaa oo ku nool magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa fanaanada qaaliga ee farax kalgacal fanka mahidaad u leedahay mise waxaad u gashay jacayl kugu dhacay dartiis waan ku salaamayaa bay tiri adiga iyo daadihiyaha aad baad u mahadsan tahay ayaan jaamac ibraahim ayaan kalgacal ayaan kalgacal maasha allah ayaana isku magac baynu nahay adigana insha alla su-aashaa mid lamida wayna ku weydiiyaa su-aashaada soo weydiisa wayna kaaga jawaabaa ayaanay fanka haa horta hiddo waan u leeyahay waxaa jira hooyadii walaalkeedu aniga abtigaya markii hore fanka wuu ku jiri jiray iminka ahaan wuu ku jiraa laakiin ma heeso waa abwaan cali haybe ayaa la idhaahdaa heeso badan uu sameeyey baa jira marka anigu waxaan is idhaahdaa n u maleeya inaan halkaa ka hidda raacay horta ayaan haye ii sheeg su-aasheeda labaad waxaa kuga tiray ma jacayl inta badan dee waatan ladhaa jacayl baa inta fanka loo gala marka mise jacayl bay halkaas ii daba dhigtay moogta marka adiga se ayaanay wallaahi fanka anigu waa iska soo galayo anoo jacayl iyo dee maxaa la idhaa wax igu dhacayna jirin unbaa iska galayo markaa dee aniga maantana halkii ka wada hay laakiin ifraax tan ayaan sheegayso inta badan waa wax jira moogta oo dee fanaaniin badan oo caano oo la yaqaano baa jacayl dartii u heesay marka arrinta iyadaa waa wax jira miyaan la odhan karin waa la odhan karaa way jirtaa fanaaniinta qaar u soo galay bimetel noo kale rag iyo dumarka qof ay jeclaadeen way jirtaa usoo galay jacayl dartii usoo galay oo u heesay way jiraan waa gartay dhegeystaha kale xiga ayaan soo qabanayaa magacaygu waa hodan oo ku nool hargeysa waxaan weydiin lahaa bay tiri fanaanada maxaa kugu dhaliya inaad fanka gasho waa hodan maxamed sheekh su-aasha iyadana uga jawaab hodanay aad baan kuu salaamayaa marka hore walaalo marka labaad su-aashaadaan kaaga jawaabo horan usoo sheegay waxaanan idhi fanka waan iska jeclaa yaraantaydi waa iska heesheesi jiray in heesaha waan jeclaa inaan iska dhegeysto waana jeclaa mar walba inaan maxaa la idhaha fanaaniin la kulmo aakhirkii anigaaba soo galay oo jeclaysta inaan heesaba aan codkayga tijaabiyo dhegeystayaasha kale waan usoo noqon doonaa dhinaca maqalka sugaantaadan doonaya inaan dib ugu noqono heeso badan baad qaadaa wadigaa kasii hafeef dhigtay inaanay jirin hees adigu aad dalbatay hal hees baa jirta markay dadku ay aad in badan oo ka mida bulshada dhexdooda ay aada isu weydiiso oo ah heesta halkudhigeedu yahay raaxo weliba heestaasi inan baa samaysay qof dumaraa samaysay heestaasi oo marka waxay ka hadlaysaa dhibinta badan bulshada dhexdeeda ka jirta bal heestaasi iyo qisadeeda iyo waxaan doonaya eryadeeda cidda iskale heestan magaceeda waxaa la idhaahdaa raaxo
ereyada waxaa iskale gabadh cariga maraykanka ku nool oo Sahar Alcayn la yidhaahdo. qisadan haddaan kaaga sheekeeyo maxamedow, qisadan waa qiso dhaba. waxaana ku dhacday gabadha abwaanada ay heesta samaysay in dabadeetana heeskii aniga ayay ii dhiibtay, aniguna waanu qaaday heesta. heesku waxa ay ka sheekeynayso oo dhan ee heesku xambaarsan tahay qisadaas oo dhan waxaa iskale abwaanada. waan gartay. markaasi heestaadaa lagu dhiibay, waad qaaday, si dareenaad u qaaday, laxanka yaa lahaa markaa? heeska waxaa laxanka iska leh Ibraahim Eagle ayaa laxanka iska leh oo heeska isagaa la xameeyey. muusigana waxaa iska leh Maxamed Xaaji kuladhay. iyadoo bilaa muusiga. duulduulka dahooy damqashadayga dhowr yaananka durkine jacaylkuna daryeel isla daadahayn dejin buu rabaa. yaa salaam codka macaan ee fanaanada Ifraax Axmed Maxamed Kalgacal ayaan idin leeyahay dhegeystayaal, nagula caweeya. duulduulka dahooy damqashadayga dhowr yaananka durkine damqashadayga dhowr yaananka durkine jacaylkuna daryeel isla daadahayn dejin buu rabaa. jacaylkuna daryeel isla daadahayn dejin buu rabaa. wadardarano doodka moodey walol diirano deel qaab laqay wadanteeno waxaan doonayaa. wadardarano doodka moodey walol diirano deel qaab laqay wadanteeno waxaan doonayaa. wadin xora cishqigu dhaqantaa jirto oy wanaga u dawaa. wadin xora cishqigu dhaqantaa jirto oy wanaga u dawaa. ugu dabawanaa ixtiraam tugsada dadka doonayaa. ugu dabawanaa ixtiraam tugsada dadka doonayaa. nolol diirnamo deel qaab laqay wadanteeno waxaan doonayaa. dardarano doodka moodey nolol diirnano deel qaab laqay halkaas dhegaystayaal haynu ugu joogo waraysigaasi aan la yeelanay fanaanadda
ifraax axmed maxamed ifraax kalgacal toddobaadka dambe haddii allaha awoodda la ogolaado ayaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigaasi mar kastaba bulshooy madashii caways reediyo hargeysa maqal dhegaystayaasha qiimaha iyo karaamada naga mudan ee hawada sida tooska nooga dhegaysanayo waxaanu idin leenahay caways wacan oo wanaagsan mar kale meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal barnaamijka cawayska rediyo hargeysa waxa uu heelan yahay raaligelinta dhegihiinna haddii dhegayste barnaamijkani uu ku dhaafo waxaad dib uga dhegaysan kartaa bogga aannu ku leenahay internetka oo ah rediyo hargeysa net amaba bogga aannu facebooka ku leenahay oo ah cawayska rediyo hargeysa iyadoo dhegaystayaal barnaamijka aad kaga qayb qaadan kartaan meel kastoo aad joogtaan bogga aannu facebooka ku leenahay ee cawayska rediyo hargeysa amaba taleefonka gacanta lagu qaata ee lambarkiisu yahay 4 iyadoo markaasi dhegaystayaal aad fariinto qoraal ah halkaasi nagu soo gaadhsiin kartaan markana dhegaystayaal dhinaca maqalka majaajilada oo dhammaanteen baaynu isaga baahanay ayaynu milicsanaynaa waxayd ugu soo maqan riwaayad ay jilayaasha sooraan iyo jawaan ay ka sameeyeen dhibaatada uu leeyahay aaladda lagu wada xidhiidha ee facebook riwaayadan oo taxanayn ugu ahaan doonta barnaamijkeenna cawayska ugu horreyna dhegaystayaal waxaan idigu leenahay nagula caweeya السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا ورياه waxaan ku ori waxana habeen iyo maalin bay isku haysaan waxaan ku ori isku haysaan maxaa la yiraahdaa sahan yaas haya waxaan adii reerkaagu habeen iyo maalinba heelade alla hugmeysaan isku haysaan idin dhex yaala nooga war sahan garameena dadku dhan baa sahayo ma doosaysa adeero waxaan ku ori ila hadalde maxaa isku haysaan ninkan ila hadalkiina saacad walba waxaan ku ori waanu yaabano nafti ilaahay baan haysee keebaan saynaa ninkan awada joogtaan ismaba hayna adeer ninka sheegi sidee waxaan ku isma haynee bale komitiga laga bixinayo komiti anigu garan maayo waxaan ku su'aal baan ku su'aalay rakaad ku hogaansantay meel kale ku maqantay ilama joogtid soo digan xayga ah soo fadhiya war bale waxa la soo dhigi komitiga laga bixinayo waryaare waxaan ku uri anu warqadeedii baan ka doonayaa ninkan inaan kaaga soo maaha warqadeedii baan rabaa waxaan leeyahay waxba laga bixinayaana waa maxay waxaan adigu hiibisad leeyahay waxba laga bixinayaana waa maxay ma doonayaan kula anu warqadeedii baan doonayaa waryaa adaan kula hadlayna nala hadal soo jeeso war waxaanu ku nidhi inantin waxay leedahay warqadeedii baan doonaya warqada haday doonayso kudaafadaha baa ka qaad kudaafadaha baa ka qaad wala kudaafada oo ma dhigine hada warqadu adigu basi anigu yaa adigu si hada aniga waraaq baan u hayaanu warqadana u garamayna meelaha uga qaad meelaheedii meelaha soo adigu basi dadku meel dul caadi ahayn waryaare xagee jireen warqadna garamay waxaan ku meel adigu basi de adeer maxaa tiri waxaan ku uri war bal cajiibkan iyo mushkiladan eega anigu ismaagisna garan maayo warqadeedii baan doonayaa baan ku uri inankaaga iga sii warqadeedii warqadeedii baan rabaa ma doonayo anigu de ninka baldayna wadiya waayahay waxa weeye hooyaday baa ii dana anigu waaba ka tegayaaba meeshan ma joogayo isagana ma doonayo bal ina kaxiyo waaye aabahayo hooyada iyo balan qabana dadkii gurigii hooyaday ina kaxiyo bal anigu dadsan dad caadiyeedun ma arkee dad la maray baan idiin arkaaye bal istaaga ani gurigii hooyaday baaba ii danaba bal ina wadiya iskaaga dhagaxda dhulkaa iyo dhisaayo maxaanu sheegay meel daran buu ku maqayey meeladaasi halkaas aynu oo joogto riwaayadaasi toddobaadka dambe haddii allaha awoodda la ogolaado ayaynu halkaasi ka sii ambaqaadi doonaa fanaaniinta dalkoo dhan yow diyaar shacawayska fanaaniinta dalkoo dhan yow diyaar shacawayska
markan waxaa idigu soo maqan dhegaystayaal fariimaha kala duwan ee aad idinku barnaamijka kaga qayb qaadataan mar kasta dhegaystayaal waxaan raaligelin siinaya dhegaystayaasha aanay u suuro gelin ee ka qayb qaataan barnaamijka cawayska rediyo hargeysa iyadoo aan leeyahay dhegaystayaal ha ka daalin ee soo dira fariimaha kala duwan toddobaadada dambe haddii allaha awoodi la ogolaado ayaad noqon doontaan dhegaystayaasha ka qayb qaadanaya barnaamijka cawayska rediyo hargeysa balse dhegaystayaal aan soo qabta dhegaystaha ugu horreeya ee isagu fariinta markan la soo gaadhsiiyey magacaygu waa leyla cali waxaan joogaa gobolka sanaag waxaan dalbanayaa heesta halkudhigeedu yahay degdeg iigu kaalay ee ay qaado fanaanada yurub genyo waa hagaaga leyla waxaan ku leeyahay igula cawee heestaasi aad dalbatay naftaydow adigan ku doorto kuma dayn karaayo dadkan kuugu jecelaye naftaydow adigan ku doorto kuma dayn karaayo dadkan kuugu jecelahaye damqashada naftaydu la kabaaxinaysana darankaara weeyo dawadiisa haysaaye darankaara weeyo dawadiisa haysaaye dama iyo jacaylba isku keentilaye degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay isku keentilaye degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay intaasaynu kaga soo gudubna dalabkii ay dalbatay leyla cali oo joogta gobolka sanaag magacaygu waa sahrakiin oo joogta magaalada ceerigaabo waxaan dalban lahaa mid ka mida heesaha ay qaada fanaanada sahrayleys waa hagaag aad ayaad u mahadsan tahay sahrakiin dalabkaad dalbatay inay nala dhegayso ubadka sida loo korshee afiya dhaqan loo baraa jacaylkaas ruubsaniyo wanaag lagu ababiya ubadka sida loo korshee afiya dhaqan loo baraa jacaylkaas ruubsaniyo wanaag lagu ababiya lamaana isaamina ayaha cashaqa kasbada aballa waxaa loo galaa adduunyada ruux ku jecel dalabka dhegaystahaas ayaa ugu dambeeyey guud ahaanba barnaamijkeen iyo cawayska ee rediyo hargeysa ee toddobaadkan dhanka farsamada habaynta iyo iskudubaridku waa saaxiibkay axmed xuseen cali cawaale iyo sakariye axmed maxamed dhinaca tabintana waa anigoo ah maxamed cabdi qalinleh intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idin leeyahay igula sii caweeya